Maanta sheekada anime-ga waxay ku bilaabmaysaa boqorkaasi oo ku caan ahaa naxariis darro iyo cadaalad darro. Wuxuuna ahaa boqor ay dadku dhibsadeen oo isleeyihiin mar uun manuga dhinto. Haddaba boqorkii dhibka badnaa ayaa maalin maalmaha ka mid wuxuu soo dhex galaa laba nin oo saaxiibo ahaa, kuwaasoo isku haystay wax. Wuxuuna isku dayay inuu kala gar qaado labadii nin ee saaxiibka ahaa, laakiin garqaadisaanka ma yaqaanin boqorkan oo labadii nin ee wax isku haystay ayuu dagaalkooga sii horiyaa. Gartuu doonay inuu qaadana waxba kama tarta kaliya dabka ku sii shidaa oo waa ku guul daraystaa inuu kala gar qaado labadan nin. Dhanka kale anime-gu wuxuu isku jarayaa laba boqortooyo. Labada boqortooyo waxa loo kala yaqaano Luthania iyo Maria. Labada boqortooyo waxay ahaayeen markii hore xulufo oo way isjeclaayeen oo isku soo bixi jireen. Laakiin markii dambe waxa dhacay inuu khilaaf soo dhex galo oo labadii boqortooyo waxay bilaabeen isdagaalaan. Maanta anime-gan ka hadlayno wuxuu ka hadlayaa boqortooyo isdagaalay. Haddana qisadaasi waxay noqotaa qiso aad la yaabi doontiin asxaab anaa nii hubo oo ni cajabin doonta. Maanta waxaan noo soo qulaasay labadii xalqo ugu horeysay ee fadlan muuqaalka like saaraysa labada xalqo kale oo la soo cararo. Markii labada boqortooyo islaayeen ayaa boqortooyo kale loo yaqaano Paris ayaa soo dhex gasha. Boqortooyo kale Paris la yiraahdo markay soo dhex gasho waxa markaa xiligan taliye u ahaa nin loo yaqaano Goris. Ninka Goris loo yaqaano wuxuu laban boqortooyo miya istagaalsan wuxuu isku dayay inuu kala gar qaado laakiin gartii uu ku guul daraysay isagna wuxuu bilaabay ciidankiisa labada boqortooyo ka awood badnaa inuu labada boqortooyo ku diro oo labada boqortooyo bilaabay inuu burburiyo. Haddaba boqortooyada Paris loo yaqaano waa boqortooyo noogu soo bilaabay bilowga ninka boqorka ka ahaa kibirka badan leh ee isku dayay labadan inuu kala gar qaado. Boqortooyadiisana waxa loo yaqaanaa Paris. Marka boqortooyada Paris ninkan king ama boqorka ah oo maamulo waxa ay ku noolaa wiil yar oo loo yaqaan Arsenal ma aha Arsenal kooxda Arsenal ma taageer team Liverpool ismuujiya. Marka wiilka yar Arsenal lagu magacaabo waa actor-ka anime-geena. Arsenal xiligan wuxuu ahaa 17 jir mana yaqaan sida seefta loo qaado oo da'diisa xiliga dadku jiraan seefta ayaa la baray inay qaadaan oo ay fardaha fuulaan oo boqortooyo kala dagaalamaan. Laakiin wiilka yar waxa wiil yar iska jilicsan oo naxariis fiican oo aan yaqaan dagaal iyo waxaas. Laakiin wiilka yar nasiib wanaagiisa waxa dhalay boqorka oo boqorkay dadku ku ixtiraami jireen oo lama hadli jirin mana caayi jirin. Haddaba ninkii boqorka ahaa wuxuu xilka u saaraa ku yiraahdaa wiilkaygii yaraa maamul nin loo yaqaano Faharsal. Ninkaasna wuxuu ku yiraahdaa nin wiilkayga waxa rabaa inay tababartid oo tababar fiican siisid oo safardaha loo fuulo seefaha loo qaado aad ii bartid. Ana ninka Faharsal lagu magacaabo waxaan ku oranayaa waxaad ii bartaa dadka leegta looga saaro muuqaalka. Ninkaasna wuxuu ahaa nin geesi ah waxaana tababar siiyay ninkii loo yaqaan Goris. Markuu xaalku saa yahay boqortooyada dadkii ku noolaa waxay bilaabeen inay tababar fiican qaataan. Boqortooyadu waxay bilaabeen inay awood yeelato dadkiina waxay bilaabeen inay mahad celiyaan boqorkii oo ku yiraahdaan adiga ayaa tababarka fiican siiyay oo caruurteena noo tababaray maanta la'aanta ay caruurteena waxay ahaan jaahiliin oo ma yaqaanin seefta loo qaado. Marka wiilkii yar Arsenal lagu magacaabayay waxa uu ka yimid tuuladiisii ama boqortooyadiisii wuxuuna yimaaday meel kale meeshaasoo ninkii Paris lagu magacaabo ku tababarayay. Ninkaas maalmaha ka mid yimaadeen wuxuuna ku yiraahdaa waxa rabaa inaan arrin kuu sheego. Arrinkaasi oo ah inaad hadda aad gaadhay qaangaad ama aad noqoto 15 jir laagana baahan yahay inaad dagaalada gashid si aad adkaysi mas'uuliyad u dareento. Hadda laga bilaabana waxaad tahay wiil mas'uuliyad qaadi kara oo dagaal gali kara. Maanta laga bilaabayna waxaad galaysaa dagaal aad u culus oo ku qaadi doona boqortooyada noocaas ah. Markuu wiilkii yar tababar fiican siiyo waxay ku soo laabtaan boqortooyadii. Ninkii Faris iyo wiilkii yar Arsenal markay ku soo laabtaan boqortooyadii waxa soo dhaweysay wiilkii yar hooyadii wax loo yaqaan Tohamin. Laakiin hooyadaas waxay ahayd hooyo sun ah maxaan ka wadaa waxay ahayd hooyo bilaa naxariis wiilkeedana si fiican ma soo dhaweyso nimana dhoola cadeyso. Markaas wiilkii yar wuxuu ku yiraahdaa hooyo hadda waxaa noqday nin gaashan qaada oo gaashanka lagu dagaalamo iyo seefta oo qaadi kara oo nin awood badan yeeshay sababo fiican waan haystaa 15 jirna waan ahay hadda dagaalada waan gali doonaa oo boqortooyada difaaci doona ka waran ku yiraahdaa maasay saanta waxay bilaabeen wiilkii soo fiiriso iyadoona hal eri ku oran ay wax bilaabeen iska jeesato wiilkiina iska dhaqaaqdo. Markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu qalbi jab dareemo oo is dhaho hooyada maxay kuugu bishaarayn leedahay. Isla waqtigaas waxay yimaadeen boqorkii wuxuu bilaabay dadkii soo dhaweeyaan dadka iyo caruurtii waayeelkuba waxay u arkayeen nin geesi ah oo weliga aan la jabin maadaama dagaal kasta uu galo uu ku guuleysto dadkuna si fiican u jeclaayeen boqorka oo u soo dhaweynayeen. xiligaas boqorku wuxuu watay maxaabiis uu ka soo qabtay boqortooyo la dagaalamayay taasoo lagu magacaabay Luthania. hadda wiilkii Arsenal aan soo laabano wiilkii Arsenal isagoo isla hooyada maxay kuugu bishaarayn leedahay ayuu wuxuu yimaadaa aabi wuxuu ku yiraahdaa aaba in badan ma kala maqnayn
anoo 11 jir igu tahay dambeysay haddana 15 jir baan ahay 3 sano war xisaabtan dhacay ka war 4 sano ismaynaan arag ee bayska war masoo adigu wuxuu bilaabay wiilkiisa soo fiiriyo wuxuuna bilaabay hadal qalafsan kula hadlo wuuna iska dhaafaa wuxuuna la hadlaa ninkii maamulaha ka ahaa ee loo magacaabay Faris wuxuuna ku dhahdaa boqortooyo xaaladeedu waa sidee iga waran macni wax dhaawac ma jira markaas wiilkiisa iska murugaysan ay wuxuu soo yimaadaa dhankii suuqiisa dhex maray wuxuu maqlaa maxaabiisto qaylinaysa isla waqtigaas wuxuu arkaa wiil yar oo reer Lustania ama yani boqortooyo Lustania ka soo jeeda kaasoo isku day inuu jeelka ama yani xabsiga ka baxsado wiilka yarina wuxuu ka adkaaday ma yani uu garaacay askartii ilaalinaysay sidoo kalena wuxuu qafaashtay caruur yar kale oo yani afduubtay markaas wiilkii rax isku day inuu dijo ku raahdo maxaa ka khaldan walaal wuxuu ahaa wiilkaas ka dhaxariis baan anigu soo sheegay wuxuu ku raahdaa maxaad baxsanaysaa iska joog jeelka ma soo ku raahdaa aduu yaa tahayba kadib wuxuu bilaabay inuu midi ku qabto oo isagana soo kaxaystaba markaas ciidanku waxay bilaabeen soo eriyadeen wiilkii soo badbaadeen amiirkooda yar ee Arsenal markaas ninka wuxuu bilaabay inuu soo kaxeeyo wiilkii yaraa wuxuu la soo dhex maraa suuqii adoonta oo wuxuu yiraahdaa ayaa iga iibsanaya markaas wiilkii yaraa wuxuu ku yiraahdaa boqortooyadan waxay leedahay adoomo fara badan oo ka soo qaadanay boqortooyada Lustania taasna waxay ku cadeynaysaa inaan ahay dad qaniyiin ama dad awood badan oo boqortooyada waxay tahay mid awood badan ee haddana ugu soo dhiiratay waan iska jecelaynaa markaas wiilkii wuxuu ku jawaabay hadalkaas oo yani wiilkii kale miskiinka ka murjiyay ama wiilkii yaraa Arsenal ka murjiyay hadalkaas oo wuxuu ku yiraahdaa xorriyaddu waxay ka qaalisan tahay jabroodiyo oo lagu siiyo adiga oo aad u gaajaysan ama laba cisho waxba cunin waxa kaloo ku yiraahdaa anaga markii boqortooyada la joogo dadkoo dhan way siman yihiin cid kala adoonsatana ma jirto oo cidna cid kama sareyso oo dadkoo dhan way siman yihiin xagaasna waxa kaaga cad in boqortooyada ka fiican tahay oo boqortooyada ay tahay mid yani dulmiga iska ilaalisa qofna aan la adoonsan laakiin inagu boqortooyadiinu waxa tin dad adoonsado waan awood badan tihiin boqortooyada nagu soo duusheen maxaabiis ay naga soo xadeen taasna la iskama cafinayo ee waniga argoosan doonaa waxa kaloo ku dhahaa anaga boqortooyadeenu cidna duulaan kuma aha cidna ma weerarto waxaana iska masaakiin oo iska degan boqortooyadeeda nidaam ayaana leenahay adoonsina kama jiro waxaana dagaalka u soo galnay amaan dagaalka intaa lagu galayno waa waxa weeyaan inaan xoreyno boqortooyadeena dadkii laga soo adoonsaday ama yani dadka laga soo qaatay ee boqortooyada adoomaha ku ah markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu qeyroodo hadalkaas maanta yani uu maqlina weligii ma uusan maqintii oo la soo korinayn hadalka uu ku yiri wiilka yar Arsenal waxa dhahay inuu dhex galo oo qalbiga galo maadaama hadalkaas wiliga lagu oran naxariisna aan la tusin dadka adoomahan uu haystay dad xoolo ama yani dad ariya oo yani iska kireysto ama yani la iska soo adoonsado oo qof walba qof kale ku shaqaysan karo oo waxas laga dhaadhicin laguna yiri adoonsi waa wax fiican qofka markaas oo adoonsada boqortooyo kale la dagaalantid waxaad noqonaysaa nin laandheera ama yani nin awood badan oo dadkoo dhan ixtiraamaan lagana dambeeyo hadduu hal qof oo adoon aad leedahay haddii laba qof adoon leedahayna waxaad noqonaysaa wasiir ka mid ah boqortooyada haddii saddex leedahayna waxaad noqonaysaa boqorka ninkan yani u taliya ama yani talada uu weydiisto marka wiilka yar Arsenal wuxuu ahaa wiil yar caqli badan wuxuuna isweydiiyay su'aalo wuxuuna iraahdaa boqortooyadu miyay ku faanaysaa in adoomo leedahay haddii yani adoomo leedahay miyay dagaalamihiin kuwa kale adoomaha laga dhigtay yani boqortooyada kale miyay dagaalami lahayd hadda laga bilaabo waa inaan la dagaalamaa wax kasta adoonsi sheegaya aabayna ku qanciyaa dadkan adoomaha la xoreeya oo boqortooyo lagu celiyaa laa xayaata liman tunaadi boqorkii yani gooris lagu magacaabay ee wiilka yar Arsenal dhalay wuxuu bilaabay inuu iska soo galo qasrigiisii wuxuuna ka cadhaysan yahay islaantiisa ama yani xaaskiisa oo ahayd yani qof xaasideeda oo mar walba aamusan oo weji cambuusa waxna kama ogo in wiilkiisa la afduubtay cid kalena uu adoon u yahay oo maanta yani suuqa adoomaha uu joogo oo la iibsan rababa warkaasba ma hayo kaliya xaaskiisu ku mashquulsan yahay mu ogaan doonaa xalqada ugu dambeysa oo ku ogaan doonaa saxaabay fadadu muuqaalka cajibi like nagu saara sigiskeen nagu tuura maca salaama waa shuufakum fi xalqa jaaye